Soomaaliya waxay yeelatay madaxweynihii sagaalaad. Doorashooyinka ay Soomaaliya soo martay may ahayn kuwo fudud oo waxay lahaayeen wajiyo badan oo kala duwan. Doorasho ayaa dhacday uu musharax kaligii tartamayay iyo tan u dambeysay oo ay ku tartamayeen 22 musharax. Sagaalkaasi doorasho waxa uu horeysay midii dhacday sanadkii 1960 oo baarlamaanka xilligaas waxay madaxweyne u doorteen Aadan Cabdulle Cismaan. Sanadkii 1961 aftil doorasho oo la qaaday waxa madaxweyne u tartamay Aadan Cabdulle Cismaan iyo علي جمعالي صدح وريق أيا لقلا وحنا حل عد كوجوليستي آدم عبد الله عثمان كل سجال بقول تضبية اللحدنكي طرش صدح وريق قارتي عبد الرشيد علي شرمارك أيا كوجوليستي مدحوينه آدم عبد الله عثمان سنة كل سجال بقول لحدني سجالك وحدلك حوك قبصدي عيدن كي حوك دلك أو هرك عي تليهودي محمد سياد بر إلا كوبي لواتن سنة أو تلذا دلك حي واحد عضي حل دورش مضحت النمو تاسيو دعضي ديسمبر كل سجال بقول سديتني اللحدي جعل محمد سياد بره أيها كليجي ترتمعي أو مشرح أحا صندوق وحا كقرنا ها يمايا طبعا إساقا أيها كقوليشتي سنة كيكون سقال بقول سقاشني كودي شركة دعيدلك جبوتي علي مهدي محمد أيها هلي عددك دمان دادكي ماشا تشوبي لابا سنة أو كميل قارة أيها لو دورتي لكن مو عالفانسا ولا حريرة كلا جب يو اس سي دا إيو تقالا نحمري إساقا إيو جنرال محمد فارح عيدي intii u dhaxaysay sanadihii 1990 ilaa 2000 Soomaaliya doorasho kamay dhicin oo mobile ahayn dawlad 26 August sanadii 2000 doorasho madaxweyne oo u tartameen 17 musharax baarlamaankii dawladda TNG-du wareegii saddexaad ee una dambeeyay oo isku soo horeen Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo Cabdillaahi Axmed Caddow Cabdiqaasim Salaad ayaa ku guuleystay 145 cod oo u dhiganta 61 boqolkiiba halka Cabdillaahi Axmed Caddow oo isaga laga guuleystay oo helay 92 cod oo iyaduna u dhiganta 38 cod tirada guud ee xildhibaanadu bixiyeen 10 Oktoobar la sanadkii 2004 baarlamaankii dawladda TFG-du waxay doorasho ka dhacday dalka Kenya ay madaxweyne u doorteen Cabdillaahi Yuusuf Axmed wareegii saddexaad 189 cod oo u dhiganta boqolkiiba 70 ayuu kaga badiyay Cabdillaahi Axmed Caddow oo isagu la tartamayay halka Cabdillaahi Axmed Caddowna uu isagu helay 79 cod oo u dhiganta boqolkiiba 30 codka guud ee xildhibaanadu bixiyeen sanadkii January sanadii 2009 dalka Djibouti waxaa madaxweyne lagu doortay Shariif Sheekh Axmed oo wareegii labaad la tartamay Maslax Maxamed Siyaad Shariif ayaa helay 293 cod halka Maslax Maxamed Siyaad Barre uu isna helay 126 cod 10 December sanadii 2012 26 sano kadib waxaa gudaha dalka lagu qabtay doorasho madaxweyne oo ay u tartameen 22 musharax wareegii labaad waxa isku soo haray Shariif Sheekh Axmed oo isagoo 4 sano ka horeeyay doorashada madaxweyne ahaa iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxaana 190 cod helay Xasan Sheekh Maxamuud halka Shariif Sheekh Axmed oo laga guuleystay isaguna uu helay 79 cod 8 February 2017 Muqdisho doorashadii labaad ee dalka gudihiisa lagu qabto burburkii kadib ayaa ka dhacday waxa uu tartamayay 22 musharax wareegii labaad waxa isku soo haray Xasan Sheekh Maxamuud Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Shariif Sheekh Axmed iyo Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo isagu markii dambe tanaasulay waxaana wareegga saddexaad u gudbay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo helay 184 cod iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo isna watay 97 cod intii aan la gudagelin wareegga saddexaad ee ugu dambeeyay waxaa doorashada ka tanaasulay Xasan Sheekh Maxamuud sidaasina waxaa madaxweynaha sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku noqday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa noqonaya madaxweynihii u horeeyay ee qurba joogay Soomaaliya yeelato